Wacan daawadayaal ku soo dhawaada muuqaaladeena taxanaha ahaa oo aynu ku soo bandhigi jirnay arrimaha qarsoon ee isboortiga. Muuqaalkeena maantana waxaynu diiradda ku saari doonaa maxaad ka taqaanaa 8 xidig ee kubadda cagta ee ku wada guuleystay Champions League, koobka adduunka iyo si la mid ah jaaysada Ballon d'Or. Intaanan guda gelin muuqaalka, waxaan kaa codsanayaa inaad muuqaalkan like saarto si la mid ah asxaabtaada la wadaagto si muuqaalada aan sida maalinlaha halkan u soo gelino uu gaaro asxaab aad u fara badan. Waad ku mahadsantahay. Nambarka 8 waa Ricardo Kaka. Kaka waxa uu ku guuleystay koob adduun, Champions League iyo si la mid ah jaaysada Ballon d'Or isagoo qayb ka ahaa AC Milan iyo Brazil. Nambarka 7 waa Zinedine Zidane. Macallinkii goordhow ka hayaamay garoonka Santiago waxa uu qayb ka ah xidigii ugu fiicnaa ee abid soo mara kubadda cagta isagoo ku guuleystay koob adduun, Champions League iyo si la mid ah Ballon d'Or. Nambarka 6 waa Ronaldinho, midkay ugu yeeraan mucaashaqiinta kubadda cagtu boqorka gebiska. Waxa uu ku guuleystay koobka adduunka, Champions League iyo Ballon d'Or isagoo qayb ka ahaa Barcelona iyo Brazil. Nambarka 5 waa Rivaldo isna wuxuu ka mid ahaa xidigii ugu fiicnaa ee Brazil soo mara, waxaana caan ku ahaa dhalinta goolasha isagoo qayb ka ah xidigaha kaliya ee ku guuleystay koobka adduunka, Champions League iyo Ballon d'Or. Nambarka 4 waa Paolo Rossi, xidigii Talyaaniga iyo kooxda Juventus. Waxa uu qayb ka yahay xidigahan isagoo ku guuleystay koobka adduunka, Champions League iyo si la mid ah jaaysada Ballon d'Or. Xusuusta ha ka saarin xidigan in uu geeriyooday 9kii Diseembar 2020. Nambarka 3 waa Bobby Charlton. Waxa uu qayb ka ahaa xulka qaranka Ingiriiska iyo kooxda Manchester United. Waxa uu ku guuleystay koobka adduunka, Champions League iyo si la mid ah jaaysada Ballon d'Or. Nambarka 2 waa Gerd Müller oo ka mid ah xidigihii ugu fiicnaa ee abid soo maray xulka Jarmalka iyo si la mid ah kooxda Bayern Munich ilaa iyo haatan rikooradiisuna ay yihiin kuwa yaala garoonka ay ku ciyaarta kooxda Bayern. Waxa uu ku guuleystay koobka adduunka, Champions League iyo si la mid ah Ballon d'Or. Nambarka 1 waa Franz Beckenbauer. Waxa uu ka mid ahaa isla Jarmalka isagoo qayb ka ah xulkii Jarmalka waagii Jarmalku kala qaybsanayay West Germany. Waxaana ku guuleystay koobka adduunka, Champions League iyo jaaysada Ballon d'Or. Haddaba muuqaalkiina waa naga intaa. Su'aashu waxay tahay kumaad is leedahay waa xidigii 9aad ee ku soo biiri